Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halkan ayaan rabaa inaan ka sharxo cashir ku saabsan sidee loo active gareeyo Windows-gaaga ama Microsoft Office-ka 2013 ama 10 ama 16 ka isticmaalaysid. Window walba waa la active gareyn karaa asagoo loo isticmaalayo reloader activation bah loo yaqaano. Marka Windows-gaaga inuu active gareysan in kale waxaa ku hubinaysaa start menu-gaaga imaw my computer-kaaga tag. My computer markaad tagtid this PC meesha kuugu qoran tahay right click dheh, properties-ka imaw. Halkan ayaa waxaa ka ogaanaysaa Windows activation. Windows is activated. Windows-gaaga hadda wuu active gareysan yahay. Windows-ga isticmaalayna waa 8.1 Pro. Marka sidaa u active garey inaad la wadaaga ayaa rabaa. Waxaa u baahan tahay inaad soo kicisid Chrome-kaaga, Google Chrome-kaaga soo kici. Google Chrome-kaaga markaad soo kicisid meeshaan ayaa waxaa ku qoraysaa Windows 7 activator. Windows 7 activator markaad qortid waxaa kusoo baxaya intaanu linki. Meeshaan supportiga wuxuu ka caawinayaa ama uu ku tusayaa Microsoft sida u active gareynayso Windows-ga. balse haddii aad rabtid inaad la soo degtid oo aad isticmaashid marka Windows 7 activator free download ama Windows 8 meesha isku bedelay Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Windows garatid marka waxaa ku dhufanaysaa Windows 7 aad ku dhufanaysaa. Windows 7 marka ku dhufatid hadda wuxuu joogaa linkii Windows 7 oo ku joogaa marka 8.1 ima Windows aad rabtid inaad soo download garisid. Marka image-kan markuu ku soo saaro hoos ayaa u soo baxaysaa. waxaa ku dhufanaysaa read more marka ku dhufatid ayuu wuxuu ku soo saarayaa download reloader leedahay marka shaqo ayuu wadayaa uu shaqeynayaa. Okay, marka uu shaqada dhameeyo meeshaan ayuu wuxuu ku leeyahay your file reloader waa diyaar hadeertan inuu ku soo download gareysmo. linkigan hoos ku dhufo. intaadan soo download gareyn waxaa u baahan tahay horta inaad wax yar ogaatid. fileka zip-ka waxaa ku xiran zip ayaa ku xiran. zip-kaasna waxaa kusii xiran password-kaas oo ah Windows. marka Windows-gaas aad ku furaysaa run as administrator aad leedahay instructionada uu ku soo saaro ayaa raacaysaa. marka noogu dhufo linkiga si uu noogu soo download gareysmo. marka waa kana ani waxaa isticmaalayaa barnaamij loo yaqaan Eagle Gate ayuu wuxuu u soo saarayaa isagii wuxuu leeyahay file size-ka 2 MB waaye. okay ayaa leeyahay marka fileka buu soo degayaa waa kana. marka fileka uu dhamaaday markuu fileka ku dhamaado fileka markuu ii dhamaado waxaa ka helayaa download meel alaala meeshu download-kayga yaala ayaa ka helayaa. marka laga yaabaa idinka inuu document idin dhex yaalo inuu download idin dhex yaalo meeshu idin yaalo. marka waa kana reloader iyo marka waa kicinaa password sida loo geliyo ayaa rabaa inaad idin tuso. reloader-ka furaysaa marka reloader-ka furtid okay password ayuu ku weydiinayaa. marka password-ka hadda waxaana lagu soo sheegay inuu yahay Windows ama haddii kale password-ka waxaa kale ka ogaan kartaa cancel iska dheh meeshaan ay ku qoran tahay Windows password. filekan ayaa furaysaa password-ka marka meeshaan ayaa ka helaysaa waa soo koobiyeysanay copy reloader-kaaga fur meeshaan paste ku dheh marka ama Windows gacanta caadi ku geli. waa kana marka wuxuu ku leeyahay ma aqbashay barnaamijyadan uu ku soo saarayo accepted marka maxaa active gareynaysaa Windows miya Office miya 16 mise Office 15 mise Office 14. marka ani waxaa rabaa Windows kaligiis inaan active gareeyo. Windows kaligiis tigta saar active ayaad leedahay. wuxuu ku leeyahay will you like to process with the activation yes markaad dhaadid Windows-gaaga asaas active gareynaya wuxuu ku leeyahay Windows-gaaga u dir reboot u dir ama restart u dir. restart ayaa u diraysaa sidaas ayuu kugu dhamaanayaa.